laakiin aniga inaan guri cariish deganaado iyo guri jingada inaan dhisto iyo guri 3 dabaqa 4 dabaqa inaan dhisto ana ii gaartaa wax ka qoseeyo hooyada Soomaaliyeed ee cunugeedii in iskool u dirsato rabtaa ma jirto mashruuca iyo imaatinka maantaan halkan isugu nimiday iyo munaasabadan waxa ay tahay aad iyo aad ayaa looga hadlay waana mahadsan yihiin madaxdii dhammaan ka hadashay halkan oo dhan iyo sida ay noogu bayaaniyeen mashruucan sida la sheegay wuxuu soo socday muddo dheer 10 sano ku dhawaad ayaa ay hadal hayntiisu soo socotay wax lagu soo booday oo hore la qabto ma ahayn caqabadaha in badan oo kamid ah waqtiga hor taagnaana gudoomiyaha Jibriil ayaa halkan ka sheegay Soomaaliya waxay u baahan tahay rebranding wajiga iyo muuqaalka iyo magaca in loo qurxiyo u baahan tahay si ay u fududaato taas ajnabiga bas naga hor taagnee Soomaalida inaga hor taagan tahay lafteeda dadka Soomaaliyeed intii waxoogaa lacag haysatay waad ogtiin meelaha ay lacagteedii ay jirto waa rajaynaynaa inay dib uga soo noqoto oo ay timaado laakiin waxaan rabaa inaan idin sheegay ninka iyo dadka Soomaalida ee caalamka joogaba na maqlaya mana dhageysanayahay gobolkan geeska Afrika Soomaaliya ayaa uu mustaqbal fiican maalgelin marka laga hadlayna mustaqbal laga hadlaa hawl maanta joogto ma aha hawl maxaan ku yiraahdaa biri ma sanooyin yaa laga hadlaa mustaqbalka marka la saadaaliyo gobolkan Soomaaliya meelaha ugu rajada fiican ama ugu mustaqbalka fiican ayay ku jirtaa waxa la soo fiiriyaa marka la qiimeynayo mustaqbalka baastigii la soo dhaafay waxa soconayay sidii wax u soconayay sidii wax u dhacayeen wax badan noo qabso wax badan waa noo dhibeen dabcan waxyaabaha oo branding kan ugu haayo waxa kamid ah dadkeen ma aha ajnabiga bas ma sida hadaata halkan looga dhawaajiyay dadka Soomaalida inaanay wax qurxoon yani muddo dheer maadaama ay hawl dhib badan iyo wax dhib badan iyo guriyo jajaban iyo duruufaha leysan iyo maamulo qaab daran iyo wax walba ay hore u soo arkeen wixiina runtii aanay wada dhamaanin oo wax kamid ah wali ay meelo badan ay ku dambeeyaan dadku kalsoonidii iyo wixii qurxana uma jeeda xanuunkii wixii xumaay ee muddada dheer soo jiray ayaa wali haya laakiin waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha ka baxaan muxuu ahay dalkan mustaqbalkaasna waa leeyahay waxa wanaaga ay ka socdaan waxa caqabad ku ah qaarkeed caqabadaha haysto waxa kamid ah dadkeena waxay u yihiin dadkeena ayaa aad u baafin og xumaanta dadkeena ayaa aad u baafin og ducfiga ama muxuu ahay waxyaabaha meelaha aan ku liidano ayagoo mar walba ka aamusayo meelaha aan ku xooganahay meelaha aan ka qurxanahay meelaha aan horumarka ka sameynayno dalkeena ayaa wadanka iyo dhaqaalihiisa iyo ganacsiga iyo waxa ka jiro dhan masawir madow ka muujinayo marka adduunyaduna maanta fariin iyo meesha ma soo aragtay bas maahane dhageysi iyo maqala adduunyadu ku shaqeysaa social media saa lagu wada jiraa waa la wada arkaya marka 10 qaybood oo social media kamid aad fiirsato ee 7-8 kamid ah ay xumaan iyo hoog iyo balaayo dhacday iyo jab dhacay iyo xumaan jirtay iyo xumaanan jirin inta ka dhaxlaba ay sheegayaan dadku meeshaas baa muxuu ahaay ya adduunyadana ay go'aan noogaga gaari laakiin dalkani inuu dal duruufo gaar ah iyo dhibaato badan soo maray inuu yahay cid inkiraysa ma jirto laakiin 24 sano u dambeysay ee dawladda aan ahayn mar walba horumar jiray 2000 laga soo bilaabo carta markii laga yimiday ilaa maanta la soo gaaro marka dib u miracsato mar walba horumar jiray bas hal waxa jiro horumarkan 24 sano ku sameeynay ka badan aan sameey karnay waa meeshaas waa duc fiican leenahay lana inkireenin oo maxaan ku raala qirayo laakiin caqabadaha yeelay ayaan dadku u qiimeysnayn caqabada aad iyo aad u waaweyn oo aad iyo aad u dhib badan ayaa soo jiray maanta hotel 5 star iyo electronic muxuu ahaay transactions oo lacaguhu ay ku kala baxaan oo sahlan oo faraashi iyo wristband iyo saacad iyo telefoon iyo kaarkiiba xataa laga sii gudbay ayaa laga hadlayaa maalin aan soo marnay dalkaani telefoon aanu lahayn oo wax qarsoodi ah ama wax private ah aan ka hadli karin meel
dadkooda fafadhi inta soo istaagto halow ma maqlaysa aad ka tiraa oo waxaad sheegaysaa kuwa kula joogan ay maqlayaan kuwa raadiyaashaasta hawada ku jiro dhan ay maqlayaan oo ay maxaan ku yiraahdaa gabadhu odageeda haddii meel jiray la hadli tagta xataa sidee rabta aanay ula hadli karin isagoo hadduu la hadlayo xaaskiisa siduu rabo aanu ula hadli karin oo dhinacyaha inta fiiriyo oo inta xishooda wuxuu rabo aanu dhihi karin maalintaas meeshaasaan ka nimid waa soo marnay maantana meeshaanan maraynaa telefoon internet maxaan ku yiraahdaa wax walba yaan maraynaa bankiska maalin aan joognay raadiyahaas halow hebel may maqlaysaa laleeyahay oo lacagaha noo kala gudbiyo xawaaladina aanay jirin bangina warkiisa badaa maantana meeshaasaan maraynaa idan markii xawaalada ama banks ama money transfer aad fiiriso ama mobile money sidoo u shaqeynayo maanta waxay maraysaa meel hebelaa taleefanka ka damay haddii la yiraaho dadku noloshoodii ciriiriye gasho oo waxay wax ku iibsadaan maastaan lacagtoodii taleefankay ku wada jirtay suuqa inta tagaan wax ma soo iibsan karaan maqaayadda intuu tago kama qadeyn karo taleefanka haddii uu dansan yahay yacni dhinacaas iyo dhinacyo kaleba amniga isbaaro dhigo qofka jaabadaha isbaar maxaad haysataa lacagta ma qaadi kartid haddaad maxaan ku rahay 10 kun meel ka soo qaadayso qoryo in laga daba qaato oo lagu ilaaliyo yani waxa aan soo marno u soo joognay gadaal haddaan u fiirino naga keenay waa meel ilaahay aan uga mahad celino oo ilaahay aan uga shukrinaan joognaa maanta laakiin wax badan aan noo dhiman amaane afkaaga kaama xigaa la yiri hor kaama xigtaa la yiri horta dadkeenu waa inay wadankeena ay amaanaan ma aha hebel ma aha ganacsi gaara ma aha bangi gaara ma aha maxaan ku yiraahdaa galwana Soomaaliya dhalinyaro jirto runtii aad iyo aad u dadaalayso markaad YouTube ka gashay aad aragtay dhalinyarada qaarkood filimada fiidiyoyada ay soo duubeen ay soo geliyaan ama xeebta liidale ama xeebta ayl iyo maxaan ku yiraahdaa dhulkaas leh ama maxaa webiga Shabeelle meel ku dhow oo dalxiista la fafadhiyo lagu quraacan lagu qadeynayo geedo ay soo sawiraan waxay muujinayaan quruxda iyo wanaagga taas waxaan markaa inaan u sheego dhalinyarada taas ayaa ka kilik badan kuwa kilikta raadinayo ee lacagta ay kaga jirto in kilik lagu siiyo muxuu ahaay page-kiisa ama bartiisa taas wanaagga ah ayaa ka kilik badan midda xumaanta iyo beenta aan jirin aad maalin walba qaaq la leedahay wadada la taagantahay taasaa ka wanaagsan war wuxuu haddaad kilig baraadinayso kiligtu aad helaysaa sida fiican ku raadi oo sida xun iyo sida colaada dhalinaysa marka qaarkood cadaawad abuurayso oo dadka qalbigooda xumaanta gelinayso oo dadka muxuu ahaa boogii hore la tagay la soo xoqayo oo la dhiminayo reer hebel xaqay ahaan reer hebel saanay ahaan la leeyahay hadda ka hor isaas dhacday kanay dhacday la leeyahay wanaaga ha laga waramo dadka intaasan kula talinaynaa waxaan soo haray مشروع آد يآد أقرح بدن لغفاني كرواي دادكو هداي دادك قاركيسا لغا يابو حولا أجنبية وحان لغو مال قلي وعاس سؤاش اللي سويدو محام ما أنت أجنبي ومال قلينا يا حولا أوكين سنة يا صوماليا شالي آن أوكين سنين يدرد محاها سنة دي طبعا سنة كور 15 سنة 20 سنة كور maxaanu u keensaneen oo maanta u keensanaya in la kala qiimeeyo u baahan yahay maanta Soomaaliya runtii oo aan ahayn iska dheh waa destination of investment dadka investorska ah meel ay soo wada aadayaan waay inta mashruuc ee bendinka ah maxaan ku raada ee taagan ee kulli maxaa dhammaan international standard ah hotel haday tahay suuqi haday tahay dekada haday tahay airport haday tahay zones ama waxa loo yaqaano economic zone haday tahay yani wax badana haday tahay khayraadka badda waxa laga yaabaa khayraadka dhanba badda yaan dhihine waxa laga yaabaa Turkida walaalahan Turkida nahay iyo muxuu ahay sahankooda dadka in laakiin markay yimaadeen ka bacdi maanta albaabka Soomaaliya waa la wada garaacaya oil and gas mid raadinayo mid kalluumaysi raadinayo mid beer raadinayo mid maxaan ku raadaan minerals iyo khayraad kala raadinaya inta ka dhaxlaba muxuu ahaay Soomaaliya albaabkeeda waa la wada garaacaya sida wasiirku uu sheegay in badan oo kamid ah xeerarkii
waxaas dhiirigelin lahaa ee dowladdu laga rabay Soomaaliya way samaysay hadday tahay damaanad qaadida investmentiga ninka meeshan damaanad qaaday xeer inuu jiro ana xeer difaacayo hantidiisa oo biri aanay dhicin waa la qaramay waa laga wareegay inaan la lahayn iska bax inaan la lahayn inuu waxa ay u soo noqonayaan oo lacagta ka soo gashay meesha fursad oo dibadda lacagtiisa oo la bixi karo inuu heli karo ku marsiisa karo asoo dabcan marayo janalada loogu talagalay ee qaanuunka maaliyadda uu tilmaamayo waxaan leeyahay marka waxaan noo dhiman dadka Soomaaliyeed ee daaraha qurqurxan iyo moolasha waaweyn iyo hoteelada quruxda badan ku leh dalka dibadiisa maanta waxa la joogaa markii ay Soomaali islaahayeen Soomaaliya fursaduhuna waxa waaye waa kooban yihiin waxa kooban fursadda mar walba la helayaa laakiin waxa la nimba odaya soo martay laba wiil oo abti u yahay ayuu soo martay oo isdhinac degan labada wiil midna xoolo badan oo oodan xoolo leeyahay midna xoolo badan ma laha oo laba saacada yaa u xiran kii xoolaha lahay xeradii uu galay neef ari soo qabo neefka gowrac bisle waxay mashquul u galay abtigi hal mar soo abtigana safar dheer ku yimid waa duruufaysan yahay kii kale guriga ku noqday intuu fiiri xero oo neef ari ka soo qabtay uma taalo meelaha duu fiiri wuxuu soo helay xoogaa garoor ah ayaa guriga ku jira garoorkii oo soo qaaday garoorkii abtiga u keenay abtiga gaaja haysay garoorkiisa u cabay oo garoorkii naftiisa soo ceshaday oo baahida darneed ay deysay ayaa wiilka kale oo hilib la araya keenay markaas abtiga kacwa kana markaas waa soo jeedaa ducadii garoor qaatay dhax ducadii garoor qaatay ninkii soo caloosh ilaa wax badan lagu shubo kama banaano oo muxuu ahaa waa wixii marka hadda waxa leenahay dadka Soomaaliya inay maal gashtaan rabo dadkan imaanaya fursadaha haystaan wuxuu yahay dhul dawladdu ay leedahay sidaan oo kale in la siiyay haystaan mid kale in loo sii balaariyay haystaan macaamilka dawliga ee laga rabo oo haday cashuur tahay haday adeeg kala tahay in loo fududeeyo laan hadda waxaan ku jirnaa heerkii aan soo jiidanayna dadkan ku jirnaa laakiin Soomaaliya maalin meel soo gaaray oo aanay waxaas fududeyntaas aanay jirin oo standardka adduunka sida looga dhaqmo maanta adduunka sida looga dhaqmo si ka hooseyso oo xogaa yar ka jaban inaan u dhaqanno laan dadka saa u soo dhiirigelino maadaama mushkilad riski inuu jira ay sheeganayaan riskigaas wuxuu u baahan yahay compensation waxyaabaha mashaariicda waaweyn aad u waaweyn ee dalkana caqabadaha ku ah ilaa maanta hortaaga waxaan kamid ah insurance caalami ah oo adduunyada ay taqaano insurance waaweyn ah ilaa markii multi-billion dollar marka laga hadlayo ma aha yani insurance yar oo 100 milyan capitalkiisu yahay ma insure gareyn karo iyo 200 milyan capitalkiisu yahay markuu bato ama ka yar insurance waaweyn oo multi-billion dollar aygan ah oo caalami ah ay u baahan yihiin dadka investmentiga noocaas sameeynaayo waxba marka uu la wadwadaa dadaal badan ayaa wasaaradda maaliyadda iyo wasiirkeenu ay sameeyeen oo World Bank iyo meelaan la xiriirnaa si ku meel gaar ah in mushkiladahaas nalooga xalliyo oo nalaga kaabo waana fiicanahay meeshaas way naga kaabmi doontaa insha Allah waxaan rabaa marka Jibriil wuxuu dhahay 24 bilood ayaa mashruucaani xariga looga jaray oo ku furmaya waa fiican tahay hawl nadiif ah oo qurxoon oo waarta si loo qabtaahay waqti u baahan tahay ku soo ord ma aha waa run waan ka garaabayna dhinacaas laakiin haddana waxaan ku dareynaa 24 bilood waa ugu badan tahay 24 bilood waa ugu badan tahay aan leenahay muxuu ahaa Jibriil iyo tiimkiisa marka meeshii wax laga dhimi karo meeshii hawsha si parallel loo wadi karo meeshii maxaan ku raadayay standardka 100% haddii loo rabay aan 190 haddaan qaadano aan waqti ku save gareyn karno iyo wax walbo la isku dayi karo in la isku dayaan rabnaa by the way markaas aas leeyahay standardka hal la compromise gareeyo oo dabcan maba laga yeeli doono oo nimankaani
asad waxa uu aba magacoodaaba asadkaas boqolaalka milyan oo meesha gelinayaan waxa uga weyn magacooda ka qiimo badan oo uga muhiimsan marka mana laga aqbali doono laakiin still ruuma jira mar walba oo lagu ciyaari karo oo la mari karo waxaan leenahay ayadoo standardkii la ilaalinayaan anna waxay fursad waaye halkan inaan ka sheegnaan rabnaa dalkan dad Soomaali la yiraahdo muslimiin ah degan boqolkiiba boqol muslim ah dastuur iyo qawaaniin uu leeyahay asaasiyaadka dastuurkeena waxaa ka mid ah sharciyada islaamka wax ka hor imaanaya dalkan sharci kama noqon karaan waxaan sharci ka noqon karin macnaheedu waxba loogama dhaqmi karo waa tuugaysi iyo sharciga laga dhuntay iyo wahalkii iyo sharciga muxuu ahaa gacantiisa gaabato gaari waayay iyo tuuganimo wahalkii waxyaabo badan oo crimes oo sharciga ka soo horjeeda dalka ka dhaca laakiin base ma laha waa intii laga arkayo runay beenay intaad cagaleedahay intay runay iga daba imaanayso intii laga daba tagay ay waxaas shaqay karaan dadka ku fahminaya marka midalan hotel 5 star iyo maxaan ku raad free zone ka aan sheegaynaa qawaaniintiisu dabcan yeelan doona laakiin waxa public Soomaaliga open oo ah oo qofka Soomaaliga uu ku macaamilayo uu imaanayo marabno in wax qawaaniinta dalka u degan iyo dastuurka dalka ka hor imaanayo ninkii investors ee ku fikiraya haddana iska iloobo dalkani haddii shalay lagu ged horta dalkan waxaan rabaa mar walba sharcigoo la jibiyaa problem ku eedan weligeed مثلا قضية هذا وجبريل كده واجو خمرجا دل كان قانون خمرجا إن لقضاء ولا جنع صدق فصحيا دل كان صوما مريض dad ajnabi ah waa loo ogolaa jiray inay ka ganacsadaan ajnabina ay kaga ganacsadaan laakiin tiya markii daba shatiga qofka ajnabiga inta soo qaad qof Soomaali soo qaato inuu meel ku furto ku ganacsada bilaabatay waayii dambe oo dawladdu ay sii daciifaysay ana waxaan leenahay khamri iyo wixii u dhigmo lamid ah oo isagaas ku category ah waa badan yihiin khamri iyo hilib khansiir iyo junni balaadan israaciye oo diintu ay mamnuucday dadka Soomaaliyeed lagala ganacsanayo meel ay joogaan loogama ganacsanayo qofaan inta kuna dhaamay ma aniga ajnabiga bas aan ka gadayahay Soomaali shaqo ku malaha iyo waxaas iyo ma jirto meel qof Soomaali ba access inuu ima karo arki karo fool xumo inay ilmaheen arkaan ma rabno fool xumo inay ilmaheen arkaan ma rabno intay dalkooda joogaan ku banaanka naga tagayaa wax badan naga soo arko ilaahay idinkiis mugay dalka yimaadaan ayaguna dalkooda la qabsan doonaan laakiin dalkan dalkaas waaye dawlad Soomaaliya waxay dawlad u tahay dadku waxa ay leeyihiin in ay u ilaaliso waxa ku xiga waxay tahay adeegi in u fiirso amniga caafimaadka tacliinta biyaha waxaan waa adeeg laakiin usus yani tiirarka mujtamaca uu ku taagan yahay diinta dhaqanka suuban afka maxaan ku raad waxyaabahaas oo dhan waa waxa aan ummad ku nahay oo Soomaali ku noo isku aqoonsanayno oo qofka meeshaas mugo maray in dad badan noo egaa jiro oo aan Soomaali ahayn meeshaas mugo maray qofka waxa lagu hadlaa assalaamu calaykum ilaa ilaa iska waran ilaa ilaa yaa lagu soo jeediyaa qofka mugaad ka shakada duu soo jeesan waayo macnaha Soomaali ma aha hadii laakiin oo qof Soomaali ah involuntarily soo jeesan wa calaykum assalaam ku dhaaya ama nabad way ku leeyahay oo ku soo waxaysanay marka in la ilaaliyo mudan yahay hawl badan noo taalo dhalinyaro badan caruur badan duruufta keentay dibadaha ku dhashay dibadaha ku soo barbaaray oo dhaqankii iyo afkii iyo wixii ay ku liitaan dawladeennuna awoodeedu ay yar tahay in aan safaaradaheena cultural centers intaan u yeelno caruurta meelaha hal la keeno Soomaaliga ha lagu baro muxuu ahaay ha ku bartaan dhaqanka oo yooyinkii iyo aabayaashu meeshaas ha ugu sheekeeyaan meelo badan sidaas oo adduunyada dalal badan ay qabaan annaga wali awoodeen dhaqaalaan fasixin laakiin waa sameeynayna insha Allah markay soo noqdaan gaaran u sameeynayna sidaas daraadeed mar kale waxaan rabaa inaan hambaliyeeyo Premier Bank ku dhiiraday aan ka caajisin muddo 10 sano ah daba taagnay mashruucan sidii riyadu sidii u rumoobiday maalintii hore riyay ahayd maanta waa rumooday waxa kale oo ku amaanayaa kuna dhiirigelinayaa mar walba
innovative يعني أفكار أو إبداعيات إن إلي ماذا ATM كي أوري بريمير بانك كنت وافرني أنا محوها مدحونها بريجاس وافرني وحد كهذا يعني بأفريقيا كوير أما إيست أفريقيا أنكجرن وحواي وإنوفيشنز أما محوها على الأبور كلا ومعنا له كان وكمل 5 ستار هوتيل كي أوري براند انترناشونال له إنه ياه كوا كلام واسوس على قفك مركب دلك معناها أسمينايو وحواي وحمعناها أسمينايو إن أقبلناه مثلا وحاجرتا دلكن هذا وحلاقة السياق السعودة سالدك ده حق عمتك لقى طور لما مذي مع صاحبه إلى شكل سعودة يعني مشروعا $2 بليون عقب بحيث دولة الصومالية محي كقادت محاك السوقري مركا وارم إن دينع مركا لقى فيريو دينع وأسيك استعين لكن مشروع ده أقون يو إنوفيشنز يو سلف سديسة مع الشقاء يو واحد بدنا كذا للدون يا أقون بدنا يرى بدنا وحكوب برد دون تهجيس قول القصة الواحد كمدة أقون الصومالي ده محاك كذا يتجهز إن كر الواقع هذا يو حكلا إيه مصالح كرو بدنا كذا للدون تأذيك بدنا ويجرا لكن نيك وحنا جوابي لعكت سهيلنا وحصل نقطة للدون أنت صار شقاء نوجه الدون تمر هنا أنا أنيا صوماليا ستلايد لقى جناي وهو ذا السركة هذه $2 بليون إيجا قيمة بدر تاس عربنا إن نقارن ما أنت تاس قارن ما أنت عندنا عيا أنت في رنا دي دونا ورهي بل وحنا محاكو كسر سنية هشيسك وقت يسوى الجارة ريفيو هالقصة ما يوديه الله أجئيه وحاصل لأن هشيس هذا أنجلي نودن آية القرآن آية القرآن معه كوا conventionist كاو international كاو قلنا لقيها بقى إني واران مدة قاعدته لكن هشيس الشركة لا قلنا أما دولة لقى شيء يعني ووقت يقول لي هاي دبو إيجس اللي قصة مايو أفرنتها ما أنت دبو إيجس اللي قصة ماينا هنا دوت كستو ده عن هين دوت حق جرو لو كان تجي هاي وأفرنتها وقت كان لو كردي أفرن وقت كان صوير يا أفرن بقالها يعني قيب سنة أن كان الدول عن قرصنا أنت عن وحقوق درسنا أفرن هذا كذا نوعان الدولة دين سمي سوق تجدي وإذا كان ما هذا كبعد وقت يبسن إنسان إن اللي يراد فرن وحبضنا فرن لكن مركو الباب كهذا استاكتو أو قف كيبا مال هدو ولحج على أنت دريمو وحنا ماشي عن كرد هذي اللي أو السبب وكردي ويا أنا بدرين ومركو الباب كهذا أنت اسكلابت أو ودن هبل هذا حوجا ولا جرويه iyo bari inaan arki weyn mushkilaad ka naas inaan ku tahay bari ma aragno maanta dad badan oo maalqabeen ah ayaa Soomaaliya jooga oo wax investment aan sameeynin haba yaraatee oo beesadoodii hantidoodii ay ku jirto oo kaliya trade gadisli yani kun sano ka hor odayga Soomaaliyeed dhowr halaad ama dhowr saacad ama dhowr nafo ari anta soo suuqa kan soo gato ayuu noqon jiray ama haduu yahay nin oo ganacsada aan ahayn reerkiisa ku biira jiray hadii kalena markuu gado wuxuuga beesa uga soo baxay haduu 5 neef kansaday lacag uga soo baxay waa noqonaya 6 neef soo kansalahayo ka fikiraya 6dii u gadaya waa noqonaya hadana maalinta daba 7 neef soo u keelay ka fikiraya waa gadisleeyaal yiraahdo marka dadka af Soomaaliya gadisleeyaal yiraahdo ganacsiga inta u gadi تيان هرم مرناي قرني كوي لباتنا مركب شمينتا مركب برقة مركب محانكو هذا ألواح مركب محانكو هذا لميدا أو دمانة سوقا جينا وكاش جرينا العقد ولا صنعنا طبعا واللو بهاية شمينتا واللو بهاية برقة واللو بهاية وحوا واللو بهاية لكن محل لو بسي باهي بديه دتك ساس يلا هي مركب اسكو تغان ملايين دولار هايستان أد بدن وشدي برقة يسمي كران وشدي شمينتا يسمين كران يعني منتاليتي ما انت ورشد بركان سمين يا ترى او دولكي aawe waa kan aad tira ilaa maalinta bur soo baxayo intaas waqti u dhaxay fitradaas oo sugi karin oo wuxuu leeyahay intaas waxaan ba hadaan gidgidiyo intaana ba isoo kordhi leeyahay laakiin waxa ka maqan fitradaas dhexdeeda markabku inuu degayo markab soo rarnaayo $2 milyan ama intaas oo milyan inuu badda ku degayo ya ayadana suurtagal ah
so dhinaca san leh mar walba businesska in la ixtimaal ma waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed war beesada iyo hantida aan leeyahay dhulka geliya hadaatana Sheekh Cali uu ka hadlay macnaha ay ku fadhido in dhulka la camiro oo hanti la geliyo nolosha dadka isbedelay haybada iyo muuqaalka iyo waxa isbedelay dhaqaalaha wulashadiisu waa kugu kordhaya markaad asad leedahay investment meel ku taalo adduunyada iyo Soomaalida kala dhamaan way ku aaminay bari haday xumaato oo Premier Bank ay problem ka timaado hantidan uu leeyahay ayaa dadkii Premier Bank wax ku lahaay ama lahaaya ameel u taal oo qaanuunku uu ogol yahay in maxaan ku raada wixii looga caawil celiyo halka laakiin nin oo bakhaar ay shamiinta uga buuxdo maxaa bariyo shamiintiisa gadanaya maxaa lagu aaminayaa muddo dheer ama deyn lagu siinayaa ama maalgasho kale oo loogu sameyn karaa waxba kuwa badan oo alwaax soo deensado oo shamiinto soo deensado oo alaab trade ka soo deensado oo maraakiibta inta dhex uga degtay cararay ee dalkii wax ka soo deensadeen ku noqon waayay ee meelaha ku gagabada waa badan yihiin sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad meesha ay joogaanba dalka maalgashadaano maalgashi ka fikiraan ganacsigooda maalgashi u bedelaan dhulka ha camireen xoolaha ha geliyeen meeshii aad isleedahay camir iyo Hargeysa camir iyo Boosaaso camir iyo Baydhabo camir kullu waa soo keen mid dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya dhexdeeda meeshaad ka camirtaba waa meesha kale cid oo diidan iyo cid dib ku qabtay iyo cid caqabada ay hor dhigaysaa midna ma jirto marka dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan leeyahay dadku waxa intaas dheer wax isku darsiga inaan wax isku darsanahay waxay keenay wax badan inaan nin walba ka siyar oo kaligiis inta tooxdo oo guri yar oo macna lahayn oo dhisayo markaan wax isku geysano waxaan sameeysan karnaa wax badan haddii kale de martuu baan ahaanayna daartii dheer magaalada ku taalo shirkad hebel oo ajnabi ah iskale dekada muxuu ahay wadan hebel ah iskale oo maal gashaday airportka na wadan hebel kala iskale strategic assets kana dawladuhu lagama kaftamo waa national security way dekad iyo airport iyo powerka iyo biyaha waxyaabaha oo ay dawladdu aanay ka kaftamin waaye public hadaanay dawladdu wada lahaaneen xataa waa inay qayb ku yeelataa hadaanay wada lahaaneen waa inay regulatory system uu jira ilaalinayo laana dadka noloshooda waxa taabanaya waaye ninka ganacsadaana si kasto u fiican yahay faa'iido uu daba socdaa ka maqan $2 inuu faa'iido meesha suurtagal ka tahay 10 inuu ka faa'iido ka sii jeclaa lahay marka cid ilaalinayso oo xakameynayso oo controlaysa mar walba qawaaniinta waay qofka ma aha wasiirka ma aha muxuu ahay generaalka iyo korneelka ma aha xildhibaanka ma aha madaxweynaha ma aha qawaaniinta dalka u degan waay waa sababta aan xoog u saaraynahay wax kasta oo jiraahay qawaaniin xeerisa in dalka loo yeero aad iyo aad ayaa markale ugu mahad celinaya waa hambalyeynaya waa bogaadinaya walaalaha Soomaaliyeed ee dalka u horseeday mashruucan inuu yimaado maalmaha soo socdana kuwa kale ayaan muxuu ahay daafurkooda iyo dhagax dhigooda iyo soo bandhigidooda iyo yaan arki doonaa mega projects ki aan sheegnay kamid yahay annaga adduunyada waxa laga yaabaa kan mega project inaan u ahayn laakiin annaga waa no mega project hotel 5 star maanta Soomaaliya in laga sameeyo waa mega lacagta adduunyada 5 star ka lagu seexdo dhamaantiin dadkan meesha fadhiyo caalamku waa soo wada marteen 5 star lacagta lagu seexdo seasonska qaarkood waxa ka badan containerada la saaray ee xalan dhaxdiisa yaale waa hotel la leeyahay ka badan yaa ka qaalisan marka hotel 5 star oo rasmi ah hadii dalku uu yeesho dadku sabab ay ugu dhiradaan inay container dhaxdiisa ay ku jiraan ma jirto annaguna ma ogolaanayno in 100 milyan ama 200 milyan investment qof sameeyay iyo qof 200 kun investment sameeyay inay isku si dalka uga shaqeystaan ma ogolaanayno nin walba wuxuu tixgelin ku leeyahay mudnaan ku leeyahay inta hantida ah ee wadanka uu geliyo ee dariiqa saxda uu ku geliyo intaasoo qofka uu mudnaan ugu kale dad ajnabiguna waa noo siman yahay ma dalka inay maal gashtaan rabo Soomaaliduna waa noo siman tahay laakiin waxa lagu kala muhiimsanaanayaa hadba qofka dhiiranaanta iyo kalsoonida uu qaaday oo dalkiisa iyo dadkiisa uu qaaday ee uu ku kalsoonaado dadka Soomaaliyeed ha isku kalsoonaadaan maanta meel fiican aan maraynaa waa fiicanna
aan ka fikirno oo waliba aan u qaylino waxa dadka wada baahida dadka qof uma address gareyn karno qof walba baahidiisa inay dawladdu isku jimayso ma yeeli karto laakiin dawladda mujtamaca waxa danta u ah ee guud ay qabanay amni haday tahay dadku ka wada dhaxeeya tacliin haday tahay dadkay ka wada dhaxaysa dawladdu ay bixinayso caafimaad haday dawladdu heli karto bixinayso dadku ka wada dhaxeeya wadooyinka iyo maxaan ku raada meelaha dadka public gardenska iyo waxa dadkay ka wada dhaxeeyaan dawladdu meelaha ay mas'uuliyadda ka saaran tahay waa saas laakiin aniga inaan guri cariish deganaado iyo guri jingada inaan dhisto iyo guri 3 dabaqa 4 dabaqa inaan dhisto ana ii gaartaa wax ka qoseeyo hooyada Soomaaliyeed ee cunugeedii in iskool u dirsato rabtaa ma jirto iskool lacag la'aan ay u baahan tahay uma baahna in hooyadaasi maxaan ku raad daara dhaadheer dawladdu waa ku dhisayna inay dhahdo aanay dhisi karin sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed dawladnimadan leh dawladdan ma dhahayo sideedaba dawladnimada ha ku kalsoonaadeen dawladnimadaas oo dabcan bini aadan ay waxa marna khaldamaysa marna saxanaysa laakiin itijaaha aan u soconaay dhinacan u jeednaay dhinac sax waay dalkan inuu amni helo oo ammaan noqdo oo qofka Soomaaliga ah oo kalsooni gurigiisa ku seexdo haduu xataa waxba haysano ku dhax qadaya xataa asoo kalsoon inuu gurigiisa seexdo inuu ku dhax qadina insha Allah taala mas'uuliyad kale weyn oo dawladda saaro waay risqa Ilaahay ayaa bixiya laakiin dadaalkeedii iyo fududeynteedii dawladda inay timaado rabo waay dawladnimada dadka ku kalsoonaadaan wajiga xun ee qof shakhsi oo tiisa waayay oo dawladnimada u yeelayana gacanta laga qabto adiga loo kaadi hal yiraahdo waxaan ku soo guraanadayaa xikmad maalin dhaweed nin odayo professor aan ka maqlay oo ka dhageystay anigu ilaa wali ardayaan ahay lagama duqooba ardaynimada yaan rabaa inuu ku soo gunaado oo hadalkii u dambeeyay hadda ka hadlayeen ee kule raad kule waa maxay waa nin quman weyntiisa nin qaldan qabashadiisa iyo nin qaajaysan quudintiisa bulshadu saddexdaas go'aanaha haday gaarto oo ninka qaldanna ay gacanta qabato intuu doono darajadiisu ha ahaatay ninka qumanna ay taageerto xoojisay tira war waa quman yahay dhinaca u socdana waa dhinac sax ah hala taageero ay tira keenna gaajaysanna inaan quudino aan ku fakarno oo isugu tagno ummadaana ummad macna leh noqonay ummadnimadeeduna ay macna yeelanaysa noqonaysa